habeenkaas marka ilaahay maqadirtii waxay ugu dhahay dadka hotelka fadhiya maqaayada tiri sabab aan u tiriyeen ma aqaan sida loo fadhiyo afar qof saddex qof afar labo saddex labo hal gabar ku jirta dadkaas oo dhan oo group saddex ah ay ku jirtay teamkaas afar qof waxay ku hadlaysay bulitiska dhigaha telefoon ku hadlayay afartaas qof kamid ah ee hagay qofka isqarxay aniga saan aaminsanahay sababtoo ah degdegan aniga telefoon qaatay gaariga dhinaca bidixda ka kursiga dambe asagana wuxuu shirku qoray isku aadan sida anaga hadda aan isku aadan oo kale way iga horeeyay iga horeyso kale ninka isqarxinaya haddii aan la hagayn markaan kule waa la hagay ma ogaan karin labadeena dhinaca fadhino cadcaysin dhinacu fadhiyo targetka ugu weyn cadcaysi waxa hadduu qabar moogaha gaari wuxuu kaga dhacaa midid dhinaca darawalka dhinaca ku xiga daaqada ku xigta aniga daaqadeed laakiin dhinaca ku dhacay waxay ahayd qof la hagay shirka labada daaqad dhexdooda ku dhacay gaariga markaan baxnay maqaayada reefsi gaariga u baxay meesha dadku u tilmaamo meel amni wada amnigeeda meel walbo meelaha way kala amni badan degmada waa bari degmada Boondheere aan dhahay Boondheere jilcadaha weyn ee sodonka ah ee garoonka Busle taga garoonka ciidan rugo ciidan waa booliis fadhiya dhinacan iyo bagga cureemada iyo wasaaradda boostada iyo ciidana jooga habar qadijan ciidana jooga laba ciidana jooga ciidanka nabadsuguda iyo ciidanka booliis oo qaybta guud ilaaliya marka ka soo dhamaatay iskuulka bartamaha ciidana jooga iyo wasaaradda shaqada dhexdeeda ciidana jooga soo socodka saddexda geed Shangaani dhagax meesha ku xiran ciidana joogo waxa laga ilaaliyo wasaaradda xabka yaala iyo degmadii iyo laga ilaaliyo iskuulka Yaasin Cismaan ciidana joogo oo saliga Shangaani ka tirsan laamiga goolka markaa gashid waxa jooga booliiskii taalada dilijirka jooga godka jilcad beesha laga ilaalay dhinaca kale Shangaani ciidana joogo bankiga iyo wasaaradda maaliyadda goolka meesha laga ilaalay dhinaca kale oo hotel Shabeelle markaa tagtid jogboonti kala ilaala oo jogboontiga madaxtooyada kamid ah hoteladan Baayida iyo Sanaag laga ilaaliyo jogboontiga madaxtooyada